السلام عليكم soo dhawaad saaxiibada ku xiran channelka Tusmeeye waa aniga Tusmeeye maanta waxaan duubi doonaa vlog vloggan maanta ku saabsanaan doonaa maanta waxaan booqan doonaa masaajid mid ka mid ah masaajidada ugu qadiimsan ee magaalada Berbera masaajidkan sida la sheegay wuxuu dhisan yahay adii muddo ku dhawaad ilaa in ka badan 150 sano marka aniga saaxiibka isla socona Naasir soo dhaw maxaa leedahay waan dhawaad saaxiib masaajidkan wuxuu dhisan yahay adigu ilaa 150 sano in ka badan wuxuu ku yaalaa shacabka waxaan yiraahdaa Turkiga صح Turkiga ku caaysan yahay waa meel carab iyo soo ay jirtay ilaa iyo awlaxankaas laakiin 150 sano waqti yar maaha marka aan isla socono hadda waxaan maraynaa waa ka laamiga magaciisa Naasir laamiga tigi weeyaan shiriyare loo mariyay صح imkan waxa kulubna siirooga loogu leexanay asiiroo laga leexanay meeshii yarado Yemenida cunada ku sameyn jirtay marka asxaabta aad baa u mahadsantiin fadlan haddii aad markuu guureysay aad channelka soo boqoto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto muuqaalka aad like saarto ana insha Allah waxaan sameyn doonaa muuqaalo badan oo aan soo sameyn doono meelo badan aan tagi doono oo taariikhi ah iyo meelo kale aad u qurux badan jawi nasasho iyo baashaal inta lagu talgalay waa ka hadda waxaan ku sii soconaa wadada dheereed ee masaajidka loo marayay xagga meel aad u qurux badan xagga sida korka arkaysan waa siiro aad u qurux badan xaggana waa meel Yemenida cunada ku sameeyaan Naasir meesha waliga ma ka cuntasi waa mashruuc laga cunaa mashruuc hada mashruuc sabiil aad wanaagsan tahay maanta habeenkii ka cashayno wallahi ma sha Allah ana marba ay doona insha Allah sida kale jawi magaalada maanta waa iska jimco maxaa lahaay dadka aad uma badna maalinta jimcahana waa waliba gelinka hore xoogaa dadka way iska yaryihiin maxaa la habeenkii hadda hadaan nimaano kale habeenkii aagan waa jam saayda hadda waa cidlo laakiin habeenkii sidaa maaha habeenkii waxaa ku yiraahdaa dadka dhan isku imaanay guys masaajidka u soo dhawaanay hadda wuxuu noo jiraa in yar ilaa xoogaa waa ka wala korakaatay marka maanta magaalada aan waxaan u maleynayaa xoogaa waxa la shidantay laakiin waa iska cidla dad maanta jimcaha inta badan waa iska nastaan waa maalin nasasho hadda saacadii waa abaarihii adiga 11 meelaha waa 5 saac marka waxaan xilliga u soo baxayna waa si aan masaajidka duurkii oo kale laga yaabo khudbo in lagu galo marka xoogaa uu jaam soo noqdo marka waxa ugu talagalay inta xoogaa uu jaam soo noqon in aan muuqaal yar oo habeesaan ka diyaariyo marka masaajid gudihiisana waan arki doonaa banaankiisa iyo waxyaabaha uu taariikh ku leeyahay masaajidka ugu dambeyntii waa kan masaajidkii waa nimaanay walaa kor marka ka arkaysa masaajid qaab oo wuxuu dhisan yahay qadiimi ah kasta uu qadiimi ah hadana lama moodo masaajid qadiimi ah isma ahaan kor marka laga arko sida manaaradda dheer oo kale ما شاء الله aad u qurux badan yahay marka waxaan sameyn doonaa gudaha gali doonaa waxaan eegi doonaa gudihiisa qaabka uu dhisan yahay kor kaliya aan ka arkay wali ma galin maanta waxay noqon doontaa markii ugu horeysay aan galo xagga iskuul xaggan guryo caadi ah u dhow xaggan waagi hore sidaan qiyaasay adin meel waxay ahaan jirtay cidla ah si aan sawiro hore aan ku arkay marka masaajidka xoogaa taariikhdiis waxa aan baaray sawiro hore sidaan ku arkay xaggan xoogaa waxay ahayd meel cidla masaajid kaliya kaligiisa isma aagan ugu qadiimsan ah marka gudaha wada geli doonaa oo wada arkaynaa masaajidka waa ka sidaan u maleynay dada gudaha ku jira weli dadka ma imaanin hadda waa iska cidlo qaybtan waa qaybtii weysada soo dhanka ma qaybta weysada waa dhankan waa maasha Allah xaggan meel waxaa loogu talagalay umaleynaya walaa ma aqaan kulay meel xoogaa barkad u eg oo korka banaana way ogtahay marka weysadan waa kan weysada laakiin waa weysooyinka dambe
يعني waa dhismihii dambe sidii hore waa laga bedelay sida muuqaalka waa ka arkaysaan. hadda soo jeedkaas waa xoogaa qadiimi, waa dhismihii hore weli lama bedelin. dhismahan oo kale sidoo kale xaggana waa derbigii masaajidka. waxaan ku jiraa masaajid qaybta gudaha, yani masaajid qaybtiisa gudaha maasha Allah aad u qurux badan yahay. hadda qaybta sare yani waxay ka samaysan tahay maxaa la dhahaa waa alwaaxyo waaweyn aad u adag iyo biro la isku daray. marka A few moments later. alxamdulillah ugu dambeyn hadda masaajidka soo baxnay qaybta dambe ayagana sama had marka waxaa samayn doonaa qaybtan dambe ama may qaybtan hore masaajidka markii waa nimaanay gudahaan galin keliya qaybtan banaanka marka ma bogo. hadda qaybtan banaanka saa wada arkaysaan ilaa waxaan tegi doonaa halkaas sama naasir ka hore masaajidka ku dhawaad waxaa ku jirnay in ka badan adiga hal sac sooma hal sac iyo barha 11 nimaan imikana waa saacadda adiga waa 12 iyo bar meelaha ka hor maxaa kaaga baxay markii hore markaa imaanaysay yani sidaa ka malaysanaysaa islaad masaajid qaabkaas u ekaan doona magaalada 15 sano ka tagay magaalada aragtay magaalada 15 sano jooga wali masaajidka ma gelin wallahi anaa bay iga soo xirfad shaqeeyo waxaan hayno xalaan masaajidada noo dhow suuqa inuu ka tukano mooyane masaajidka wali waa loo fog waa markii ugu horeysay maana masaajid saa wada arkaysan waa ka hadda qaybtan waa qaybtii laamiga banaanka sama xaggan waa laamigan dheer laamigan wuxuu tagayaa ilaa iyo halka xaggan waa laami kale laamigan waa laami dhanka dekada gelay xaggan waa laamiga masaajidkan waa ka qaybta qiblada waa tan waa dhankan masaajid sidaa wada arkaysan yani waa wuxuu ka samaysan yahay waa dhagax yani dhagax aad u adag waa masaajid si fiican maasha Allah laga taxadaro marka hadda yani masaajidka intaas aan yani ku soo gabagabeynayna oo maxaa lahay gudaha iyo banaankaba waxaan rajeynaynaa si fiican wada aragteen yani meel wada wuxuu saaraya maasha Allah aad u qurux badan. marka فلوجنا maanta masaajid ku saabsanaa intaas
ayuu ku egyahay xilli qadaa la joogaa waa adii 12 bar masaajidka waa inaa macsalaameeyaa way bye inaa dhaho waa maadaama intaa markii ugu horeysay haddana aan kasoo tegay insha allah mar dambe inaa imaadaan rajeynaya intan iyo in ka badan masaajidka waa kan hadda waxaan ku socnaa dhankii magaalada xaafadda wadadan waa wada aad u xaggan waa dhismaha librariga ee magaalada maasha allah waa meel aad u qurux badan maasha allah waa meel aad u qurux badan wuxuu u dhow yahay masaajidkana waa kaa librarigana waa kaa wax yar isku jiraan marka maanta moorta muuqaalo badan oo waxaan soo wada insha allah yani vlogyo aad u qurux badan hadda waxaan maraynaa vlogana daa meeshii aan ka bilowna meel u dhow yani vlogana maanta waxaan jeclaystay inaan intaa kusoo gabagabeeyo haddii aad jeceshahay yani berbera aad joogtid oo maxaa lahay aad isleedahay meesha muuqaal laga soo sameeyo qaybta community kusoo insha allah anagana waxaan sameyn doonaa muuqaal kasta waxaan isku dayi doonaa muuqaal kasta muuqaalka ka dambeeya inuu noqdo muuqaalkii hore ka qurux badan tan intaan ku kulmi doono waa anigoo tusmeeya iyo saaxiibkay naasir hadalka u dambeeya maxaa leedahay halkii loo baaday halkii cid reebri bargaranaysana ku kulmtay ku soo baxshay okay aad waa mahadsantihiin tan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo